aynu ku bilownay madaxweyne ku-xigeenka Iiraan ee arrimaha haweenka iyo qoyskeeda oo laga helay cudurka coronavirus. Moussome Ebteker ayaa ka mid noqotay dadka laga helay cudurka coronavirus ee dalkaasi ku sii fidaya, sida uu sharaxay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Iraj Hajriji. Kiiska Ebteker ayaa la sheegay in uu yahay mid fudud, isla markaana aan isbitaal loo dhigi doonin, sida ay dhakhaatiirtu ugu warameen mas'uuliyiinta dalka Iiraan. Dhinaca kale, Iiraan ayaa sheegtay in tirada dadka u dhintay cudurkani ay gaarayaan 26 qof, taasi oo ah dhimashadii ugu badnayd ee laga diiwaan geliyay dalalka ka baxsan Shiinaha. Tirada guud ee dadka uu Iiraan ku saameeyay cudurkani ayaa gaaraya 245 qof, oo ay ku jiraan 7 mas'uuliyiin sarsare. Saacadihii aynu soo gudubnay waxaa la xaqiijiyay 106 kiis oo cusub, waxaana dhimashada ay gaartay 26 qof, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda caafimaadka Kianush Jehambor oo la hadlay telefishinka dowladda Iiraan. Heerka dhimashada ee kiisaska la xaqiijiyay ee fayraskani ayaa aad ugu sarreeya Iiraan marka loo barbardhigo dalalka kale ee caalamka. Dhinaca kale, dad badani oo ku dhaawacmay dibadbaxyo ka dhacay dalka Greega. Booliska jasiiradda Greega ee Lesbos ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo xabadaha cinjirka ka samaysan u adeegsaday boqolaal dibadbaxyaal ah oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee jasiiraddaasi. Dadkani ayaa ka carisan qorshe ay xukuumaddu waddo oo ku aadan in halkaasi laga furo kaamam cusub oo la dejinayo dadka muhaajiriinta. 10 ruux oo ay ku jiraan xubno ka tirsan booliska ayaa ilaa iyo haatan ku dhaawacmay dibadbaxyada, iyada oo ra'iisul wasaaraha dalka Greega uu ku baaqay in xaaladda la dejiyo. Dibadbaxyada ayaa sidoo kale la soo warinayaa in ay ka dhaceen jasiirado kale oo hoostaga dalka Greega, iyada oo kaamam badan oo ku yaala dalkaasi ay waqti xaadirkani ku sugan yihiin 100,000 oo muhaajiriin ah. Turkiga oo ku hanjabay in ciidamada dowladda Suuriya uu ka saarayo gobolka Idlib. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay qorsheynayso in ciidamada dowladda Suuriya ay ka saarto gobolka Idlib ee ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Syria. Hadalkani waxaa sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, isaga oo ku goodiyay in tillaabadani ay qaadayaan dhammaadka bishan Febraayo. Waxaan qorsheynaynaa in aan xureyno deegaanada ay ku hareeraysan yihiin ciidamada Suuriya dhammaadka bishan, ayuu Erdogan u sheegay baarlamaanka dalka Turkiga. Ruushka ayaa qaabilsan maamulidda duqeymaha hawada, kuwaasi oo si joogto ah loola beegsado fallaagooyinka uu Turkiga taageero, waxaana bilooyinkii ugu dambeeyay duqeymahaasi ku geeriyooday 100 ruux oo shacab ah, halka ku dhowaad 1 milyan oo ruuxna ay isaga barakaceen gudaha dalka Suuriya. Dhanka kale, Putin oo sharaxay xaqiiqda ku saabsan arrin lagu xamayn jiray muddo dheer. Madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa qiray in horey loogu soo bandhigay fursad ku saabsan inuu samaysto qof muuqaal ahaan u eg si amnigiisa loo sugo, laakiin uu diiday inuu aqbalo. Waxa uu sheegay in arrintani oo muddo dheer lagu xamayn jiray miiska loo soo saaray horaantii sanadkii 2000 markii uu Russia la dagaalamayay kooxihii gooni-u-goosadka ahaa ee Chechnya. Mr. Putin oo ah 67 jir, horey uga tirsanaan jiray ciidamada sirdoonka Russia, ayaa dhowr jeer safarro ku tagay goboladaasi intii ay dagaalada socdeen. Muddo sanado ah ayaa baraha bulshada lagu xamanayay waxyaabo uu si gaar ah u sameeyo madaxweynaha, sida in uu leeyahay dad muuqaal ahaan aanan laga garanaynin si amnigiisa loo sugo. Hase yeeshee, Mr. Putin oo xukunka Russia hayay tan iyo sanadkii 2000 ayaa sheegay inuu iska diiday samaysashada dad u eg, inkastoo marar badan loo soo bandhigay fikirkaasi. Sheekadani ku saabsan arrintani waxaa markii ugu horeysay soo shaac bixiyay Andrei Fandeko oo ah wariye wareysi la yeeshay Mr. Putin, kaasi oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Russia ee TASS. Mr. Fandeko ayaa sheegay in waxyaabihii ugu badnaa ee ay dadka internetka isticmaala ku raadinayeen magaca madaxweynaha Russia ay ka mid ahaayeen dadka u eg Putin iyo cadeymaha la xiriira arrintaasi.
Waryahani ayaa xitaa markii uu madaxweynaha wareysanayay weydiiyey su'aal ahayd hadda ma waxaa tahay Putin-kii saxda ahaa. Isaga oo su'aashaasi ka jawaabaya ayuu Mr. Putin xaqiijiyay inuu yahay qof sax ah oo ah madaxweynaha dhabta. Waxa uu beeniyay inuu weligiis dad u eg muuqaal ahaan u isticmaalay amnigiisa dartii. Waxa uu sheegay in fikradani marar badan loo soo bandhigay intii u dhaxaysay sanadihii 1999 ilaa 2009 xilligaasi oo uu sheegay inuu ku jiray xaaladihii ugu adkaa ee la dagaalanka argagixisada. Mr. Putin ayaa lagu wadaa in xilka madaxweynaha uu ka degay sanadka 2024 markaasi oo ah xilliga uu ku egyahay waqtigiisa afraad ee uu xilka madaxweynenimo qabto. Laakiin waxaa jira warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan inuu xil cusub raadsan doono amaba uu dowladda ka maamuli doono daaha gadaashiisa. Hadda waa madaxweynaha ugu waqtiga dheer ee abid soo mara waddanka Russia wixii ka dambeeyay Joseph Stalin oo xukumi jiray Midowgii Soviyeeti muddo ka badan 20 sano oo qarnigii la soo dhaafay gudihiisa. Bishii January, Mr. Putin waxa uu ku taliyay isbeddello dhinaca dastuurka markii uu jeediyay khudbadiisii sanadlaha ahayd ee uu ka hor akhriyay baarlamaanka. Natiijooyinka dhabta ee ka dhalan kara isbeddelladaasi weli ma cadda, laakiin dadka falanqeeya arrimaha waddanka Russia waxay aaminsan yihiin in ay tani tahay isku day uu xukunka ugu sii nagaan karo madaxweynaha Russia Vladimir Putin. Ugu dambeystii xiriirka Bangiga Adduunka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya. Bangiga Adduunka ayaa shalay sheegay in ay cadaadiyeen xiriirkii ay dowladda Soomaaliya la lahayd Bangiga Adduunka 30 sano kadib. Bangigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay in ay fursado u furto dowladda Soomaaliya, fursadahaasi oo ay ka mid yihiin in ay Soomaaliya hesho deeqaha uu bixiyo Bangiga Adduunka iyo in ay wada shaqeyn la lahaato dhammaan laamaha Bangiga Adduunka si ay u soo jiidato in Soomaaliya la maalgashado gacanna looga geysto deganaanshiyaha iyo horumarka waddanka. Soomaaliya ayaa ka rajo qabta in laga khafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay iyada oo loo eegayo deymaha laga khafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay. Barnaamijkaasi oo loo soo gaabiyo HIBIC. Tallaabada Bangiga Adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay'adda lacagaha adduunka ee magaceedu loo soo gaabiyo IMF ay iyaduna sheegtay inay heshay yabo ku filan in ay hay'addu dhinaceeda deymaha ka khafiifiso Soomaaliya. IMF waxay sheegtay in ay yabohaasi oo dhan 334 milyan oo ay ka heshay in ka badan 100 xubnood oo ku jira